الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقاذية 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 عمد الصومالية عذو قيدو ضمانتين وسلامتين انت امريكان كقدبو ضمان haweenka dhalinyarada iyo naftood horayaasha iyo qaybaha kala duwan ee jihada wadaniga xoreynta Ogaadenya xubnaha guddiga fulinta golaha dhexe kaadirka iyo cid kasta oo magaca jabhada maanta meeshan ku fadhido waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib jihadu waa caymis inaad jihada ka mid ahaato aday caymis ku tahay haddii aad dhinac uga leexatana dool cidlo baad ku dhimanaysaa keliga bariba wadaad suufi ahaa ciidan u yimid innaga aynu leenahay meel jooga markaasuu yiri xirsi xir joogta ama leedin markaasuu wuxuu yiri waxa la yiraahdaa xirsi xib baan leenahay salaada maqribna intaasaan akhrinaa salaada subaxna intaasaan akhrinaa markaasuu wuxuu yiri boqol yahu ku dar maalin damba dagaal lagu galay meel la dhihi jiray hadaawe ee 5 nin ku shahiiday marka waxa ku jiray ninkii asaga la yiri quraanka ma taqaanidii wardi kale iyo adkaar kale ma keeni kartid adigu yahuudad qaabilsan tahay shantii nin buu ku jiray maalinka ayada waxaan maleynaa wiil yar Maxamed yar la dhihi jiray baan ka xasuustay jeefad Allahu naxariista markii la soo yimid maalinkii dambe iyo wuxuu yiri wallahi ya kitaabka ninkii yahu isku qaada inuu barafaangaha beebeeg ahmaarad inuu gafuur ku dhufan hadda waxaan leenahay wallahi ya kitaabka ninkii oo leh khiyaanadeeda banaanka la istaaga dhinaca uga beeyda isagoon baa meel cidla istaaga dariiq cidlaan ay haad ku cunaysaa taasi markaan ka gudubno aniga waxay la tahay waxa hadal oo dheeraada oo meeshan ku haray ma jiro qadiyadeenu farikama qodna faanoo leh wali wixii aan doonaynay iyo hadafkii aan hiigsanaynay ujeedadii aan lahayn ma aynan gaarin inta arrintaas iyada ah suurtagal ka noqonaysana daal inaga ma dhawa waan duqoobi karaa waa laga yaabaa inaan duqowno oo xubnaha iyagu ay wax fara badan suurta gelin waayaan laakiin qofka intuu nool yahay xooggiisa xataa haddii uu duqoobo waa dareenkiisa weyn waa inuu dareenka noo badbaado weeye waa inaan noqono kuwo had iyo jeer ku xisaabtama inta ay guusha shacabkooda maqan tahay in aysan noloshoodu dhammaystireen waajibna ay ku tahay inay shaqeeyaan aniga waxay la tahay dhammaanteen qof la arkow mabdaada aaminsan tahay dhab ha ka ahaado waxaa la doonayaa midka kula dhashay iyo midka aad dhashay haddii uu mabaadiida adiga aad aaminsan tahay cadow ku yahay haddii shariicada islaamka ku banayn maysa inaad dishood wax yeelayso laakiin waxba kuuma haddaynan kaa go'nayn ka go'naashuhu qofka inay qadiyadiisa ka go'an tahay mabaadidiisana ay raasikh tahay oo qalbigiisa ku fadhido waa midda kaligeeta ee suurtagal ka dhigaysa inuu gaaro guusha uu u baahan yahay guul naftaada aad gaarta midda ugu sarreysana hadday xornimo inaynu helno waa wax ilaahay la jira way laakiin inaga waxa guul inoo ah qofka inuu ku qanacsan yahay waajibkii ka saaraa dalkaada iyo dadkaada ma gudatay yani guul bay ku tahay sababtoo ah qofka wax uu dhaliilan naftiisa ugu xumaan uu ku tuhma naftiisa ugu weyn taas marka inta kaga gudbo haad baa meeshan wax looga shanqariyay qolaan naga leexatay baa tiri shirweynaan qabsanaynaa oo han yar la yiraahdo oo jabhadu waa wax magacyada bixin og way jabhadu haday mar magac ku bixiso waliga ka haari maayo han yar qolo loo bixiyay baa jirta runtii ku fogaan mayno waayo waxaan hubnaa inay soo halgameen waxaan hubnaa inaynan awood u lahayn taariikhda inaga teena ee jirta inaan ka saaro dema awoodno oo dad soo shaqeeyo soo halgamay laakiin maanta
intay naga leexdeen iyo weliba waxay noqdeen awoodna lagu garaacayo oo qadiyadii iyo dadkii waday lagu dhabarjabinayo weli waxaan leenahay de waxba naga dhaxeeya aan lagu kala tagin waa dalka dadka iyo diinta way ilaahay waxaan weydiisanaynaa cidii qaloocan isaga awood leh inuu soo hadeeyo oo uu soo hanuuniyo cid allaale cidii qaloocan inuu ilaahay hanuuniyo oo wadada toosan isaga yaqaan ku duwo cid allaale cidii wanaagsan ee qadiyada sidii ay u xambaartay wali u taaganna inuu ilaahay sharafna u xambaariyo guulna inuu ilaahay u gaarsiiyaan ayaan alla weydiisanaynaa khaatimadan allah noo suubiyo qofka bini aadanka noloshan meelay naftu gaari doonto cid warka haysa ma laha laakiin waxaad ogaataan xadiid qudsi baa jira nabiga uu yidhi anaa cinda danna cabdii bi falyadun bi maa shaa anigu addoonkayga wuxuu iga malaystaan oo ahay marka ilaahay wax xumaan loo tiirin kara ma ahe aynu wanaag ka malaysanna had iyo jeer nimanka ayaga ahna runtii brograam adag bay galeen mana awoodna in aan hadda sii raacno oon sii eryanno waxaanse idiin sheegaynaa qadiyadan qofkii intuu ka leexda waxyeello u geysta noloshiisa gaarka ee ka go'antahay taana waan hubnaa saas daraaddeed innagu waxaynu isku ognahay midnimo waxaynu isku ognahay wadajir waxaynu isku ognahay cadaalad waxaynu isku ognahay qalbigeenna oon isu furo waxaynu isu ognahay inaynu intaynu iscafinno isu naseexayno wanaagga isu sheegno si aan u guulaysanno guusha kama dambaysta u gaaro waxaan maanta gacanta ku hayna waa la inagu soo simay waxaan inagu dheelaynay oo inagu bilownay ma ah 29kii shirkii magaalada Garbo ee Sheekh Ibraahim gudoomiyaha loogu doortay naftuura diirana loogu doortay inuu gudoomiye ka-xigeen ka noqdo waan joognay waxaan hubaa aqal baan seexanay tayar xanuunsaday oo magaalada la keenay aniga guri liisay hadda ka horna in badan baan sheegaan male goor dambe aniga oo jiifa waxaa yimid Allahu naxariistay garaad maqtal daahir oo socda yimid markaas waxa la yiri war xageenda jinnaash garaadka meel dhul ah iyo ma seexin karo ani marka hadalkii dhagteeda ku dhacay aad waan u tabardaraa waxaan iri kaalay maxamed siraad doolaal iyo ninkii la dhihi jiray Ilyas Sheekh Ali waxaan maray rag maalinkii 9 bay ahayn cadaaniba maanta ka nool baan u malayn intaan u yeeran waxa jeelas ani fresh iyo barkin dhulka la dhigo garaadka sariirta loo goglo sidii ba garaadka sariirta loogu goglay waxaan hubaa marka intaan hubo habeen barkii buu toosi jiray 6 saac iyo 7 saac intuu dhaxayso toosi wasqashu galay wuu soo weysaysan wuu soo bixi salaad tukasho bilaabi 4 ragcadood markuu tukadaba wuxuu lahaa ilaahay kooxdaas yarta ilaahay hadday wanaaga garab marsan tahayna ilaahay wanaaga ku dug ilaahay haddaysan wanaaga garab marsanayna ilaahay guule ilaahay hadday wanaaga garab marsan yihiin wanaaga ku dug ilaahay hadday wanaaga aysan garab marsanayn ilaahay guule buu lahaa markii dambe shirweynihii aan nimidna gabagabadii buu ka hadlayo wuxuu yiri 4 qof oo hooyo iyo aabba wada dhaleen hadday idin taliyaan ku daba faylo waa qabiil iyo waa kan balow dhinac isaga dhiga hadda marka waxaan isleenahay waxa weeye 4 isku hooyo wada dhaleen hadday noo taliyaan Soomaalida inta ugu badan markii oo lafta laga reebo qaybaheeda badan ma qaan gaaraan waxa la qofku inuu qaan gaaraan raba duruufo waxa la doonayaa oo qofku ka gudbo oo san dib ugu laaban inay jirto hadalkii waan dheereey waana badiyay waxaan ka codsanayaa tusaale fiican u noqdo nolosha aan ku dhex jiro haba yaraatee inaga xageena wanaag mooyaan xumaan yeesan soo jirin cidii halgankeeda ku soo biiraysa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa cidii khaldantay ee khalad intay gashay khaladkeeda ka soo noqoto ee noo timaadana ma fogeynayna qadiyadan iyada iska leh way qayb bay ka tahay waan ilaahay baa moogtahay walaa ya'tali ulul fadli minkum wasi'ati waxa jirtay xaashakada xadiithul ifki umna Aisha markay dhacday yaa waxa la yiri nin baa jiray saxaabi hadda magaciisa ma xasuusto kale wadaadada aad u garanaya marka wuxuu ka qayb qaatay xumaantii ma macaasho ka qayb qaatay Sayyidina Abu Bakar bay qaraabo ahaayeen saxaabina wuu hawuna biili jiray markaas wuxuu yiri laga bilaabo maanta wallahi inaan ku biilaynin buu ku yiri markaas ay soo degtay aayadda quraanka ee walaa ya'tal ulul fadli minkum wasi'ati ayutu ulul qurba wal masaakin wal muhajirin fi sabilillah
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم مركز سيدنا أبو بكر لابد يجيب لكم مركز إلهي وعفس كذا بهنا هذا ننكي ذنوب تأوق قال إلهي كون كان أبو ري هدي وعفس كأقبل يدون كيسي أنا وندا عدي wanaagga ay gashayna wanaagga ay leedahayna la soo diyaar garoon xumaantii ay gashayna ka toobad keenta waa walaalkanaga waan soo dhaweynaa wax dhib ay leedahay malaha mujtamaca Soomaalida ee aan annaga maanta halgankiisa horseedka u nahayna aan tusaale fiican u noqono inagu xumaanta aan ka fogano wax afkeena laga maqla wax fiican ha ahaado wixii dhaqan ahayn la inaga arkana wax wanaagsan ha ahaadeeno taas waxay sabab u noqonaysaa in bulshadana soo raacdo waxa inta dheer inteenaan qof la arka ha u dhaqaaqayno 10 qof jabhada ku soo dara qof la arko inuu 10 qof jabhada ku soo daro isaga intuu dareenkeeda iyo go'aankeeda qaataa isku faral yeelo saas daraadeed waxaan noqonaynaa awood jirta waa sax saaxiibadeedii hore ka soo sheekay waxaan yinkii u rarnaa ee cadawga iyo dhibaatada iyo mashaakilka loo geesiyaa galabta halkan fadhiya nooma maqna Soomaa inaan guul beegsanayna marka waan hubnaa laakiin inaynan gaarayna yaanan hubin guushu iimaanaysa saas daraadeed anigoo ku hadlaya magaca jabhada kan gudiga fulinta kan golaha dhaxa magaca gudoomiyaha kaadirka iyo xubnaha dhamaantood ururada bulshada qaybahooda waxaan idin markale idin leeyahay waad salaamantihiin ilaahay hayna guuleeyo halgankeena Allah guuleeyo cadawgeena Allah qabto bogeena burcada Allah isu mariyo wixii xumaan nagu dhex jira Allah naga saaro wixii wanaag naga sii jeeda Allah noo soo jeediyo wixii xumaan nagu soo jeedan Allah naga sii jeediyo halganka aan ku jirra waa xalaal keeni ku dhinta meel san Allah mariyo keeni ku noolaadana sharaf Allah huwiyo waad mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh